iska dhaafa ciise mid baa idin sheegayaayo inaad waxyaalaha aad u fiirsataan ma wanaagsana dadka kalena ha ku mashquulin intii noon inagu odayaasheenii gandaheenii ogaaskeennii meesha ciise oo dhan qoomiyadda beesha ciise weyne laga maamulayay kol bay hadashay mar labaad ma hadasho marka waxaan ku leeyahay waxaa idin waa ku salaamay abtii boqorre cigaal dhamaantiin baan salaamaya macaliyaasin intay garanaysa asxaabta ah ee ahel iyo qaraabalkaas ka salaamaya waxaan idin sheegay dhamaantiin horta soo dhaqaaqa berito la isku wada imanaya waan dhaqaaqnay hadii ilaahay iraado waxaan arkay qaar ciise oo aad u wareersan oo arimahan ka wareeruntii oo garanayn waxa ay ku wareereen xataa waalaikum asalaam ilmaadeerayaal soo wada dhawaada aynan garanayn xitaa waxay ku wareereen anuma garanayo ciise waxay ku wareereen war sawti odayaasheenii hadleen waxa hadlay maad aragteen dadkeenii baa hadlay waxay yiraahdeen maalinka caynka saacadii second dib ugu dhacaysa ugu dhicin ugu dhici doonto oo dhamaantiin horta waxaan leeyahay waxa isku imanaysaan ee shaca dhaqaaqay qofka ugu horeeya dhaqaaq waaniga arkay waan diyaarsanahay xataa maad aragteen xafladda xeer ciise halkaas ku qortay waaniga arkaya halka bay iga qoran tahay marna ma seexanayo ilaa aan xafladda iyo waajibaadkayga soo gudanayo dhamaantiin horta saas u soo diyaar galow anigu diyaar baan ahay hidii dhaqankaygina waa iska sitaa malaha ana nigu horeynayo walilaha sii goynay dadkii wada diyaar saaka intii ugu horeyso way soo gashay qaarkii ugu horeeyna way baxeen marka waxa idin sheegay dhamaantiinba horta waa dadkii diyaar ah cid kasta oo diyaar ah halkaas waxa la joogi doonaa 25 cisho ayaanu joogaynaa walilaha goynana bari ugu horeyso hadii ilaahay yiraahdo dhamaantiinba yaa loo kala hadin ciise yaana loo kala hadin tani looba kala haday qarba waxa arkay dad ay guriga ay ku dumeen maqligdaar baa ku dumeen wax saaso ma maqli jiray war waxaan leeyahay anigu gaashaankayga iyo garabkayga waa sitaa raggi aan ku kalsoonaana dhabarkayga iyaga walilaha goynaya aniguna waan buraanburaya marka waxa idin leeyahay meel kasta joogtaan waa inaad ka soo dhaqaaqdaan iyo abtino inaad soo dhaqaaqdaan weeyii marka waxaan leeyahay aadayaal nabadgeliya dhulka ka jirta dhulku waa dhagdhag nabad baa lagu caana maqlaama maqli jirta ciday nabad u dhibayso we don't care laakiin annagu inaan nabad hayno xeerkayagu nabad yahay dhaqankayagu nabad yahay dadkayagu nabad yihiin dad tola oo nabada tola aan nahay ciise markii la maqla maxaa kugu soo dhacay baa laga nin Soomaaliya nabada ay u soo dhacda marka waxa laga maxaa kale kugu soo dhaca ciise laandheer iyo laangaab ma laha laandheere iyo laangaab ma laha marka ciisuhu yaaftino ciise waa laandheere waa laangaab ma laha kule waa dadka Soomaalida marka weydiis ciise marka maqlo maxaa igu soo dhaca ciise waa wada ciise nin caarama dheer oo facalayga ya salaam xabadaasna awooyaashayga iga tago ana dhaxalulade aniga Soomaalina way ila leedahay waxaan anu leeyahay Soomaali oo dhan baa ila leh xeer beeleed ma waa xeer Soomaaliyeed oo international ah يعني انت قلبضه ay jabsantahay laba hadla inta qalbiga fayow ee aniga ila dhiiga ila dir ah ila daarood ah intaas oo dhan ma la hadlay oo ila qaadatay ma aragteen ay xeerkayga marka waxa idin sheegay horta qalbadiyeen jag bay tiribaan leeyahay marka warkaan ni sheegaya hadii ilaahay raado waa la soo dhaqaaqaya waanu dhaqaaqnay halka fariintaydaana meel kasta gaarsiya ciise waan dhaqaaqnay waxa iskugu imanaynay waa shaca anagu kale nima sugayno laakiin cidii dhaqaaqaysa gaadhiyada iyo tigidhaduna waa bilaash ma fahanteen marka waxaan idin sheegay dhamaantiinba aadayaal reel ma aado oo dhan iyo reel ma walaal oo dhan waxa la iskugu imanayay waa meeshii waa ma aragteen xundurtii waa hoygiini dhamaantiinba ee shaca janno ayaa la isugu iman doonaa deetana seela caday baa ku soconaa ma fahanteen marka aniga inaad iigu imataan ma rajaynayo inaan iga soo horeeyo oo walilaha sii gooy ayaa rajaynaya marka waxa idin sheegay dhamaantiinba halka cidii joogaysa 25 cisho ayaa halka walilaha ku sii gooyn doonaa ku sii ciyaari doonaa ku sii baraamburi doonaa waxaan leeyahay harimaade hanaha banta lahayn doona marka waxa idin sheegay qof kasto oo mas'uuliyad ka saaran tahay xafladda xeer ciise waa in la isku yimaadaa xageede
halka iyo saylac marka waa ina waliba soo xafidin heeseen sayliciga ee sallallahu la oranay ma adarag marka waxa ii sheegay runtii waa isku xiismay informationada waa inkastoo aan aad u mashquulsana qoraalla ayaan idinku soo gudbinayay wax kastoo jirana qoraalada aad kala socoteen yani uma maleeyo in ma aragteen hadeed wax isku kay soo hadsan tahay intii ma aragteen tabi aan teeniso tabinayay fariintii aan niso diidayay waa idii soo dhiibay dhamaantiin marka waxa idii sheegaya meel kastoo joogteen ciise gundhatayarow ciise ma aragteen ay gundhatiyara iska soo xidha ciise warankaaga yara iska soo qaado qolxadkaaga yara soo qaado adeerda wixii aad fahmi weydana de kolka adaa talaabo ka qaado laakiin iminka iska soo qaado marka waxaan ii sheegay yes ha 25 cishaan joogayna 25 cisho in ka badan cidii joogi kartana waa dhulkayga beedkayga beledkayga yaa ka celin kara no waad u dhalatay dhulka waad ku dhalatay waad u dhalatay awowgaaba iskale aabahaaba iskale aadaa iskale sayla cid adiga ku sheegan kartaa mid gobolka salal oo dhan ba meesha doontad ka tagi kartaa meesha dakhli baad u soo hoynaysaa Soomaaliland cashuuraad baad u soo gelinaysaa cashuur baad ku galaysaa ka waran marka Soomaaliland bisinka maalinka wayba waa la baraarayaaba Soomaaliland waxa leena cashuuraadka maalinka aad ururinayso wax naga siin marka waxaan la sheegay dhamaantii intaasna waa iga kaftan isku keenkeena waa in aad iskugu imataan ay shaca anigu waa nish inta dareedaba joogta inta erar iyo dhulka joogta inta madarta gobolka City hareeraha oo dhan joogta inta Djibouti joogta inada way u dhow 25 kilomitir bay u jirtaa ee waxba loogama sheegayo Djiboutiyada diyaar waxa leena naga sii horbaxa inta inaan bari anu niga sii hortagin Djibouti baa la hadlay Djibouti yaana niga sii hortagin inuu naga sii horbaxa inta ay shacay imanaysan waxa uu sheegay gawaarida dareedaba laga soo raacaya waa bilaash kii ma aragteen lama sugayana waan istabaraya lana dacday ku taal laakiin gawaarida waxa lagu nigula soo garay la barada halkaas ay idin soo dhigay gawaaridana la soo xiriira wabillahi tawfiiq maxay u keen haray tolkayo waa ka ana nisan xataa niisoo galaysaan nigu sheegay marka diyaar ahaada share gareyntii like waa dhankiina aniguna shaqadaydu waa dhanka aan warkayga wad iga haysaan marka maxay isku keen haray wa alaykum asalaam dhamaantiin halkaas aan iga soo salaamay runtii waa idin jecelahay bahdaani ugu xiran oo dhan aad baa idin jecelahay idinka wax idin ku ahay ma aragteen wax waliba sideedee noogu socdaan wax kasta way isku keen dul saaran tahay marka waxa idin sheegay inaga oo isa soo dhisa isa soo hagaajiyo isa soo qurxiya marka ha iloobina nin bilaahidii dhaqana saylac ma galay taas ogaada nin bilaahidii dhaqana saylac ma galay taas ogaada idii dhaqankiina soo qaata nin kasta sumadu lahaa ha soo qaata adeer sumadan daani aabahay baa sameeyay aabaha intuu jiifay oo meel kale iskaga maqnaa aabahay sida ay soo yiri sida eeg oo ii soo sameey saylac ana iskale ilaahay baa iga soo saaray ilaa aad ka tagaysa hawaasha ana iskale aaday ciise madooba la yiraahdo oo aabahay ah oo tafiirtaydi ayaa adeer aniga ii soo xoorxooray halkii uu ka xoreeyay ma aragtay ciise inankiisa cali kala geeyana waa saylac abti halkii ma aragtay cashuurta gaalada laga qaadayay uu ogaas rooble ku cashuurayna waa saylac adoo intaas halkee joogta inta cashuuraadka ka guran inta gaalada adoonsaneen inta gaala cadcadka iyo la tamasaarida aan adoonsaneen halkee joogteen meel aad joogteen malaha marka dadka inta anagu soo guumaysanaa ka badan inta la guumaystay inta anagu caalamka la dagaalamayna ka badan inta Soomaali isjaafa jirqayn Soomaali waa isjaafa jirqnaa ma in anagu dadku waaweyn ka la dagaalamnaa sidayada no Soomaali ma dagaalan Soomaali anagu gacan ba ma Soomaali nabadeedaan dhisnaa horumarkeegaan dhisnaa in waxaliya wixii walaaltinimadeedaan dhisnaa laakiin anagu waxa la dagaalanaa dawladaha waaweyn caalamka ka tirsan ee internationalka ee la garanaya ayaa isla dagaalaa qof anagu aanan halka soo joogsan oranayna tan ciisanahay qori intaan soo qaadano qof Soomaali sida ugu ma tirinayna xaraan bay naga tahay laakiin hadii laga maarsan weydo hadii ay ka maarsan weydo ay faraha nala soo galgalaan way ku dhacaysaa baasho marka waxaan sheegayaa
ciisow waa inaad aqliyeysataan waa inaad cadowgaaga sadiiqaaga garatid waa inaad ka kuu dhaweey ka dheer garatid halka ay maalinkii garba ciise la xasuuqay ayay reerkana daba socdaan khayrkooga Allah nasiyaan wax ma oranayo abiy isir bayn wadaagnaa dadka quraateen maanta wax siinay ma aragteen horo marinay booramada wallahi Jabuuti baa laga dhisay maanta jecelnaa nabadooda iyo horumarkooda jecelnaa ayaa cadow nagu ah bal waxa ay sheegay ciiso dadkaasi hadii aan ku qabsano xeerka dhulka yaga oo geeyno iska daa halkan waa sayl anaga ba iska leh oo boorama geeyno haday ka banaan baxaan ha laakiin maxay ka banaan baxayaan war waxan aad ka banaan baxaysaan ee diidantiin ma boorama sayl miya la kala saari karilay war boorama sayl waxaan sheegay mid baa sheegay wallahi mid baa idin sheegaya dad wax bartaatihiin anaguna qof wax bartay baana markaan anu sidaa u eegay arrinku waxa ila noqotay maadaama iminka doorashadii xildhibaanadii iyo balaayo la galayo in xisaab horena ay ku lunsan tahay maadaama labada gobol labada deegaan la isku daray eeg saylac iyo Lughaya bani iyo Boorama baakiya Boorama eeg waa baakiya Boorama waa saylac iyo Lughaya afarta degmooyin ayaa gobol la isku yiraahdo afarta degmooyin labadii degmooyin ee ciisaha ما دركتنا عشورته ولا بدأ كسر قشوا وما دركتنا كستم كسيل عي حريرات سل البيك سويده مركا واحد ديده ريركن إن الله حسابتنا نرانو لعقتي قبل كأوض اللي قصوا شبه عدا اللونصلايا الكيد جيسي مركا إن أنا حسابين درت بدجالس كجسي الرئيسين يعني ليه ورواك هذا حسابنا لهركن عيسى ونلا حسابته بكل إيه هالكين أنا وكجلينا وابا أنت واحد لود ديدي وابا انتاو بورما لعقتي لو دسايمك سيلع waxa u dhismilaada waa maxay lacagtii ku dhismi lahayd wadooyinkii dariiqada boorama lagu shubay afartooda ismarinays hada afar wasiir bay leeyihiin waxaan oran karnaa anagu hadaan ciisanahay hadee toole maadaama madaxweyne ku xigeen aad inaguna qaata anaguna madaxweyne ku xigeenka 5 sano san ma aragteenay inagu hadaa 5 sano ma mushin 5 dambeeyta ciisa maamulay إلا قبل بال مثلاً قبل كويان قبل كانوا ولا يسلدقة عيسية سمرون بيسلدقة واللغاية سيلع والدستريك بورما يدستريك سيلع صدع سيولي جد كلانس مركا يساقلوا يسكفها سيع يارتن هذا حسابات باكو صبح بحياتات كان واحد يقول وحكى معها ولي بسيبه ما دركتين سمرون كحسابتي قبل عن سلل wixii lagu dhisay iyo wixii kala bayaga ismari marka xisaabtaas inay ku soo bixin darteed weeyaan waxay buugan sabab bay ka dhiganayaan buugan ma oran boorami waxa la kala saari lahayd sayla war sayla mise boorama u jirta 243 something marka adeerayaal aqli yeesha ciiso ana halka tolkay ciise weyne iyo Soomaalida marxaatiga ka ah in waxyaalaha dhacaya ayaan u sheegaya marka sayla iyo Lughaya إلا الشيخ إلا ما دركتين هالك يكون نقطة إلا يضماشة إلا الشيخ إلا هالك يكون دماته أو سيلة عيا لغاية حريرة دي هالك يكون دماته وعيسى إسكال عذر مركا إسكدا ونلنوش إلا يتوبي ونلنوش لكن صاني احترامنا إن نود احتراتين بافيان أنا قمت حينك وحيان باكانا دولة ديغانك حق مليدنا لكن هذا لصدا ني حق دورنا انت سوحا Soomaaliya kuma dariya daarood ku nool laakiin wali uun ismaanan oran dadka walaalaheena cidna ma xaqirno hadaan anagu ciisanahay way noo wada simayeen dadka waan wada jecelahay dadku walaal buu noo wada yahay waxaanan cadawga kala shisheeye ahayn anaga qoomiyadaha kale ana la wadaagin magacii abiy isr ana la wadaagin baan anagu dagaalna annagu inaad noo mahad naqdin bay haydo tiraadin thank you ciiso waxa naga haysaan shisheeyaan naga ciisiya garaha inaad u mahad naqdin weeyaan runtii wallahi billahi waxa iyagu niga ayaan maalinka haday nigu soo fasaxan Soomaaliland la sheeganaya ma jirto cadawgu soo qulquli wallahi billahi da meelaha yareed haysatiin baa qasab lagu wada qaday laakiin waxa soo dhan ciisa idinkaaya ciisa waa darbi Soomaali oo dhan baa garanay ajagsi laa naxariistay muxuu ciisa waa darbi Soomaaliyeed ayuu waa jagsi ninkii dhintay laa naxariistay Muqdisho dabadeeda marka waxa idin sheegay dhamaantiinba horta inaad u mahad naqdaan ciise oo tiraadaan ciise thank you inaad